Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka laga yimaado inaynu timirta iyo caanaha u isticmaalno cunitaan ahaan iyo cabbitaan ahaan, haddana labadooduba waxay ka mid yihiin cuntooyinka iyo cabbitaanada jidhka siiya caafimaadka. Marka mid kastaba gaarkiisa loo isticmaalayo, arrinta kale muhiimka ahina waxay tahay in isku daritaanka timirta iyo caanaha ama in timirta iyo caanaha mar la wada isticmaalo xilliga subaxda hore ah ee aynu hurdada ka kacno waxay jidhka u leeyihiin waxtar badan oo caafimaad oo laga yaabo inaynaan ka warqabin. Marka timirta iyo caanaha la isku cuno xilliga subaxda hore ah ee aynu hurdada ka kacno, waxay jidhka siiyaan dhammaan noocyada kala duwan ee jidhku uga baahan yahay inuu ka qaato cunnada amaba cabbitaanada. Waxaanay ka hortagaan dhiig yaraanta, sidoo kalena waxay dejiyaan neerfayaasha jidhka. Waxaanay dawo u yihiin xanuunada ku dhaca dheefshiidka, waxaanay ka hortagaan calool istaagga. Jidhkana waxay u fududeeyaan inuu iska saaro sunta, sidoo kalena waxay hoos u dhigaan xanuunada ku dhaca wadnaha. Waxaanay wanaajiyaan habka wareegga ee dhiigga iyo halbowlayaasha dhiigga ee wadnaha. Sidoo kalena waxay xoojiyaan habka difaaca ee jidhka, waxaana yareeyaan kana hortagaan fayruska iyo bakteeriyada dhibka u leh jidhka. Sidoo kalena in timirta iyo caanaha la isku cuno xilliga subaxda hore ah waxay dawo ka yihiin dhagxaanta ku samaysanta kelyaha iyo cilladaha ku yimaada kaadi haysta. Waxa kaloo u fiican yihiin caafimaad qabka ilkaha iyo ciridka, iyadoo ay ku jirto maadada faloor oo u fiican ilkaha iyo ciridkaba. Waxaanaynu baraarujinaynaa inkastoo timirta macaanka ku jira uu yahay mid naturaal ah, haddana qofka qaba xanuunka sonkorta ama macaanka waxaa muhiima inuu dhakhtarkiisa kala tashado qaabka uu isticmaalayo timirta. Ugu dambeyntiina, Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taam ah.